intaan gelin hadalkayga aan doonayaa inaan idiin sheego in ay nala joogaan maanta wafdi ka socda dowladda Itoobiya oo 3 nin ka kooban. waxaan jeclahay inay istaagaan oo aragtaan halkeedu weeye halkii ugu munaasabsanayd weeye dowladda Itoobiya iyo dadkeedu wayna garab taagnaa maal iyo hub iyo abaabul inta wayna garab taagnaa iyo waxay dhaalisay in labada wadan iyo labada ummadood oo walaalaa oo jaara inay muddo dheer xumaantii dhexdiile ay ka baxdo ay maanta noqdaan cad inoona cad inay noqdaan wafdiga qura ee ajnabiga ee Soomaaliya dhex jooga laakiin saan uga baxnayba waxaanu isku daynay una najaxnay inaanay shirkeena joogin waayo shirkayna kaale waxa wax kula joogi kara kii maalintii addaanay wax ku taray ee mid maalintii kaa soo horjeeday ama aan wax ku tarin maanta inuu muxuu kaala qayb galo muxuu farxadaada iyo shirkaaga iyo arrinkaaga muxuu ahaa waa nala noqon weeyey sidaasaanu ilaa shalay ilaas maanta ugu dambaysay wuxuu jeclay inay ka qayb gasho aanu dariiqo aan xeebna ahayn aflagaadana ahayn aanu ku najaxnay inaanu ku celiyo dhulkooda waanayna kala qayb galin shirka waxaan intaanan muxuu ahaa hadalkayga bilaaban waxaan isxusuusinayaa in rag badan oo mujaahidiini ay ku shahiideen halgankii beeraayna ku soo jiray inay muxuu ah xus ay ku leeyihiin markaa shirka waxaan ka codsanayaa in faatixada loo akriyo baadaraakii maalintii la gooyey maanta ummaddii dadkay ka soo dooratay oo ilaa 400 agtiisa ay yihiin iyo maanta halkan fadhiya una fadhiya inay muxuu ah arrimaha waqooyi ka wada xishadaan waxaan ka fadhiyaa in ilaahay nala qabto oo dariiqii hagaagsanaa oyna waafajiyo shirkana wuxuu ku yimid markii esalan ay dhulka xoraysay ugu horeysay ku baaqday waxay ahayd nabad in beelaha waqooyiga waddan laga dhaliyo taasna danta esalanna way ahayd danta beelihii ay markaa esalan u gargaareen way ahayd waxay sida taariikh